4 filim oo uu Salmaan Khan diiday balse uu Shah Rukh Khan magac weyn ku helay. Soo dhowow daawade mar kale, waa anigoo ah Axmed Deeq Xasan. Halkan aad naga dawanayso waa Deeqsame. Nala joog ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. mahadsanid. Salmaan Khan iyo Shah Rukh Khan waxay ka mid yihiin xiddigaha filimada ee ugu caansan Hindiya, waxayna masraxa hogaaminayaan in ka badan 30 sano. Labadan xiddig oo dhashay 1965 waxay filimada ku biireen isku waqti, waxayna weji cusub u yeeleen habka jilitaanka filimada Bollywoodka oo ay guulo taariikhi ah ka soo hoyiyeen. Ilaa maanta oo ay weli magac weyn ku leeyihiin jilitaanka, waxay haystaan taageerayaal badan, xirfadoodana ma istaagin, labadoodana waa saaxiibo isku dhow. Laakiin marka taariikhdooda jilitaanka dib loo eego, waxaa jiray dhowr filim oo Salmaan Khan uu ku gacan sayray balse uu Shah Rukh Khan qaatay guulo waaweynna ka soo hoyiyey. Waxaa ka mid ah aflaantaasi: 1. Bazigar. Salmaan Khan qudhiisa ayaa shaaca ka qaaday in markii hore loo soo bandhigay filimka Bazigar ka hor inta uusan soo jilin Shah Rukh Khan. Waraysi uu bixiyey ayuu xiddigan caanka ah ku yidhi, waa iska diiday Bazigar. Markii uu Abbas Mustaan ii yimid isagoo qoraalka filimka wada, aabbahay ayaan la tashaday. Wuxuu ku taliyey in maadaama uu yahay door laadarnimo ah, ay ku khasban yihiin in ay hooyada qayb uga soo daraan. Way aqbali waayeen. Markii aan filimka ku gacan sayray, waxay u tageen Shah Rukh Khan, kadibna hooyadii ayay qayb uga soo dareen. Laakiin kama qoomamaynin gebi ahaanba. In filimka aktarka hooyo loo yeelo waxaa iska lahaa aabbahay Salim Khan. Filimka Bazigar waxa uu soo baxay bishii Noofembar ee sannadkii 1993, waxaana Shah Rukh Khan ku wehlinayay jilayaasha ay ka mid yihiin Kajol iyo Shilpa Shetty. 2. Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. Ka hor inta uusan Shah Rukh Khan soo jilin filimka Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, waxaa la soo tabiyey in doorka magaca atooraha ee la yidhaahdo Raj Malhotra loo bandhigay Salmaan Khan. Xitaa Saif Ali Khan ayaa laga codsaday inuu booskaas galo, laakiin waxaa la sheegay in labadoodaba ay iska diideen. Lama oga sababta ay labada atoore dhagaha ugu furaysteen codsiga filimkaas. Hase yeeshee, markii dambe waxaa qaatay Shah Rukh Khan, filimkiina waxa uu noqday mid laga daba dhacay. Xitaa Soomaalidu ay jeceshahay Dilwale Dulhaniya oo soo baxay bishii Oktoobar ee sannadkii 1995, waxaa Shah Rukh Khan ku wehlinaysay Kajol. 3. Jack the Hindiya. Salmaan Khan ayaa mid ka mid ah waraysiyada lala yeeshay ku qirtay in loo soo bandhigay jilitaanka filimka Jack the Hindiya balse uu diiday. Sababta waxa uu ku sheegay inuu dhibaato ku qabay magaca uu watay filimka. Warbaahinta Indiya waxay sheegeen inuu diidayay inuu niyad jabiyo ama ay ka xumaadaan taageerayaashiisa ka soo jeeda Bakistaan iyo Bangladesh. Qisada filimka waxay ku saabsan tahay nin xiddig ciyaaryahan ah oo loo arkay inuu waddankiisa khiyaanay balse marka dambe muujinaya inuu qarankiisa daacad u yahay. Waxaa kale oo ka soo muuqday atariishooyinka kala ah Vidya Malfade, Jitrashi Rawat iyo Sagarika. Kal Ho Na Ho. Sida ay tabiyeen wargeysyada ugu caansan Hindiya, Salmaan Khan waxaa loo xushay inuu filimka Kal Ho Na Ho ku jilo doorka uu qaatay Saif Ali Khan. Balse Salmaan ma uusan doonaynin inuu atooraha labaad ka noqdo filim uu hogaamiye ka yahay Shah Rukh Khan, sidaas awgeedna wuu diiday. Filimka Kal Ho Na Ho ayaa noqday mid ka mid ah filimada loogu jecel yahay Bollywoodka, waxaana Shah Rukh Khan iyo Saif Ali Khan ku wehliya atariishada lagu magacaabo Preity Zinta. Haddii aad ka hesho muuqaaladeena, fadlan nagu dhiirigeli legtaada channelkeennana ku soo biir, siina gudbi muuqaalkan si aan u helno saaxiibo adoo kale ah. Waadna ku mahadsan tahay tixgelintada.